السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. كيف حالك أستاذ جمال؟ Aljazeera waxa ay soo bandhigtay sawiro gaar ah oo guriga qunsulka Sacuudiga ee Istanbul oo laga dhex sameeyay foorno ka oo la sheegayo in lagu sameeyay guriga qunsulka Sacuudiga ee Istanbul uu ku leeyahay. codkan waa qof isagu sameeyay foornada. waxa uu leeyahay qunsulka Sacuudiga ayaa iga dalbaday foornadaasi in aan ka dhex sameeyo gurigiisa. waxyaabihii ay isku soo hadal qaadeen waxaa ka mid ah nooca foorno ee la doonayo in guriga laga sameeyo. mas-uulkan la wareysanayay oo Aljazeera ay soo bandhigtay ayaa waxa uu tilmaamay in foornada laga dalbaday ay ahayd foorno si aada wax u dhalaalisa. foornooyinka caadiga ee la yaqaano waa 600 darajo ayuu yiri, laakiin midka laga dalbaday waa 1100 in laga dhigo heerkoodii kulka ah, taa oo waxyaabaha biraha ah aad u dhalaalin karta ayuu yiri. saraakiisha Turkiga ayaa waxa ay ka war heleen foornadaasi 3 maalmood kadib dilkii markii uu dhacay. waxa ay muujiyeen muuqaaladii la soo qaadayba meelo kale oo cusub oo guriga ka mid ah oo lagu soo ogaaday baaritaanka guriga qunsulka maalintii ay dhibaatadu ay dhacday. 45 kilogaram oo hilib ah ayuu ka dalbaday mid ka mid ah maqaaxiyaha ku yaala Istanbul. saraakiisha Turkiga ayaa waxa ay rumaysan yihiin ayaa la yiri in lagu daboolayay meydkaasi. meydka waa la jarjaray gudaha qunsuliyadda ayaana lagu jarjaray, kadibna guriga qunsulka ayaa loo qaaday. markii hore gacmihiisii ayay qabteen, labadiisii gacmood ayay gadaal ay qabteen, kadibna madaxa ayay kiish ay u geliyeen. inuu iska celiyo ayuu isku dayay, afkii ayaa laga qabtay iyagoo gacmahoodii adeegsanaya. waa isku difaacay isagoo dhahaya sanbabada ayaan ka xanuunsanahay, waxaan qabaa dhibaato dhinaca sanbabada ah. kiish ayay madaxa ay u geliyeen, aad ayuu isaga celiyey, balse nasiib daro muusan awoodin inuu iska caabiyo. 7 daqiiqo kadib waa uu dhintay. meydkiisa ayaa dhulka ku dhacay. Salaax Abdabiiqi waxa uu ahaa qofkii ugu dheer ee kooxda, waxaana uu bilaabay in uu jarjaro meydka Khashoggi. waxa ay socotay muddo 30 daqiiqo ah jarjarista meydkiisa. markii la dhammeeyena waxa uu ka dalbaday kooxda in ay kiishashka ay keenaan. maxaad u taagantihiin ayuu yiri, soo degdega kiishka keena. jirkiisii oo la jarjaray ayuu kiishkii uu ku riday, kadibna afka ayuu ka wada xiray. kadibna waxa uu u qaybiyey boorsooyinkii ay wateen. 1 saac iyo bar ayuu howlgalkaasi uu socday ee meydka lagu jarjaray, oo ka bilowday in la ceejiyo ilaa iyo jirkiisii la jarjaro. Aljazeera waxa ay wareysanaysaa wadihii tagsiga ku waday kooxdani. waxa ay weydiisay haddii uu ku baraarugay waxa kiishka ku jiray. si fiican maanan u eegin ayuu yiri, waxa ku jira kiishka keliya waxay la ahayd waxyaabaha lagu qaato dharka marka la soo iibsado. halkan ayaan ku dejiyey ayuu leeyahay si ay hotelkan ay u galaan. waa goobtan meesha aan ku dejiyey, soo raac goobtan weeyaan. si ay kor ay u galaan halkan ayaan ku dhaafay ayuu yiri. halkaas ayay doonayeen hotelka Mofibenka. halkan ayay u soo dhawaadeen ayuu yiri. kuwaasi si wuxuushnimo ah ninkaas meydkiisa u galay. Aljazeera waxa ay booqatay sidoo kale xaruntii shaybaar ee ciidamada amniga ee Istanbul. doorkii Sacuudiga ee cadeemaha lagu muujiyay uu ku lahaa dilka Khashoggi. 9 saacadood kadib waxa ay soo heleen ayaa la yiri dhiig. xafiiskii qunsulka ayaa laga soo xiray iyo sidoo kale raadadka dhiigii Khashoggi. kooxdii falkaasi qaaridiinta geysatay ayaa la tilmaamay inay isaga baxseen waddankaasi. madaxa sirdoonka Turkiga ayaa qadka kula xiriiray dhaxal sugaha waddankaasi.
بالكشف عن مصير خاشقجي waxaana uu ka dalbaday in la soo gabagabeeyo kiiskaasi wixii jirana la caddeeyo si uusan u xumaanin xiriirka labada dal نفى بن balse salmaan ayaa isaga fogeeyey waxaana uu sheegay hadalkaas inuu u ogyahay mid hanjabaada taleefonkii ayuuna ku damiyey saaxiibkiisii ayaa ka sheekeynaya intaan Jamaal Khashoggi la dilin hanjabaadihii uu la kulmayay inay ahayd in mar uun uu la kulmi doono in la qafaasho haddii Sacuudiga aan tago waxa uu yidhi waa la qafaashaya ama waa la xiri doonaa wadamada kale xitaa haddii aan tago waxaa suurtagal ah diyaarad gaar ah inay afduubato mas-uulkii hore sirdoonka dalka Turkiga ayaa isaguna ka hadlaya arrimahaasi ma jirto wax hadda laga hadlo oo qadiyada Khashoggi ku saabsan dadku dhan waxa ay wada og yihiin arrinta meesha ay ku biyo shubatay waxay ogsoon yihiin barta la rabo in la bartilmaameedsado in ay tahay cidda amarka bixisay mas-uulka ugu horeeyey ee dhacdadaasi iyo sidoo kale kuwa beenta faafiyey waa labada walaalood dhaxal suge Maxamed bin Salmaan iyo walaalkiisii safiirka Sacuudiga ee Mareykanka shakhsi si aad uga dhow madaxweynaha Turkiga oo Al Jazeera ay wareysatay waxa uu weydiinayaa sababaha ay codadka ay u hayeen codadkaasi lama baahin karin maadaama cadeymuhu ay ahaayeen kuwo si aad xasaasi u ahaa waxaa la weydiiyey sababaha ay u ogolaadeen inay dadkaasi ay isaga baxsadaan dalkaasi Turkiga qofkaasi waxa uu ahaa qof aad xasaanad u leh garsoorkiina waa uu naga soo daahiyey mowduucaasi qadiyada ku saabsan ayuu yidhi gabadhii saaxiibka la ahayd oo ay Al-Carabiya ay wareysatay Khashoggi ayaa waxa ay leedahay maalin ma rumaysanaynin in mowqif noocaani oo kale aan soo dhex istaagi doono ilaa hadda ma ahan wax aan qaadan karo sax waan fadhiyey ama waan fadhiyaa waana ka hadlayaa dhacdadaasi laakiin ka binaadannimo